wardegdega saraakiishii ugu badnaa iyo sidoo kale ciidamada hogaaminayaan ayaa ka soo goostay garabka aadan madoobe kuwaasoo goordhaweyd gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gaar ahaan deegaanka Ceeldoon oo Afrisinka ugu weyn ee ciidanka Laftigreen ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isla markaana ah taliska ugu muhiimsan ee ciidanka Laftigreen guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waqti xaadirkan ay ku leeyihiin mas'uuliyiintana waxa halkaas ku soo dhaweeyay afhayeenka garabka Laftigreen wasiirro hore xilal uga soo qabtay Koonfur Galbeed iyo sidoo kale wasiirka amniga garabka Laftigreen Xasan Cabdiqaadir soo dhaweyn kadib waxa goobta ka hadlay afhayeenka garabka Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftigreen ugaas Xasan kaas oo ka warbixiyay muhiimadda iyo sidoo kale qorshaha ay u joogaan duleedka magaalada Baydhabo howlgalladii ugu dambeeyay ay sameeyeen iyo sida ay uga faraxsan yihiin saaxiibada cusub ee ku soo biiray ugaas Xasan waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan saaxiibadooda cusub ee ciidamada geesiyaasha xaq u dirirka ah ee u dul qaadan waayay dulmiga iyo tacadiga ka soconaya gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isla markaana go'aansaday in ay la midoobaan walaalahooda xaq u dirirka ah kana qayb qaataan halganka dib loogu xoreynayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya markii ugu horeysay oo ciidamo noocan ay ku soo biiraan garabka Laftigreen isla markaana ay ka soo goostaan garabka Sheekh Aadan Madoobe waxaana tan ay muujinaysaa fashilka Aadan Madoobe uu wajahay tan markii loo doortay hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kan ugaas Xasan afhayeenka garabka Laftigreen oo ka warbixinaya saraakiisha iyo ciidamada ku soo biiray safkooda iyo sida markaas ay ugu faraxsan yihiin daraawiishta Koonfur Galbeed kooy doonta Baydhabo lama huraan lankii ka alahaayniyo hilimooda hayaan lankii ka alahaayniyo hadareerana hadhawaayo salana ilaahay idin shay wasiirka wasaaradda amniga wasiirada taliyaalka gudoomiyaasha xildhibaanada hadhawaada waliba sharafniinaha inuu geeka ka dhawaayna xarunta taliska dhexe ee ciidamada daraawiishta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya geebkumada ciidamo hakabiiri oo nin ku kooyan baladka Baydhabo walaalayaal walilana hadhawaada ka dhawaada ciidamadii deegaanka ciidamadii daraawiishta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya halkan kumalsiin kulle isin iskulle ciidankii aan kooyteen dadkii aan kooyteen ilaahay idin shay wali rajeeyana inay isla falgal doonno ilaahay roob ujeedadan talan kooy isku koobanta adawgii dalkaana ka duuli dawladnimadaana la dagaalamay midabada badan lahaay afbalaar iyo salbalaar in deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya la ku xoreeyo la fadeex magaalada hortigaaseen ku mari hano dhato kooyn bariyaadka iska roorkoomay isin ilaahay ka samaafiyo dhawaada marka ilaahay idin shay Baydhabo wal xoreeye waqtiga ma dheer Baydhabo dib lankanaga doona maalmo ku baad insha Allah ta'ala oo ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkaana gala Baydhabo saadan wali kala fadaanaha inay una soo kooban arna dadka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo roogaanba taageeradin iyo garab istaagin inaan kama hasantiin ilaa la ku xoreeyo cadawgaas dalka ka duulina sidii hornaan bani garab surunayta ilaahay idin sheeyay garab surunaada bi Ilaahay ta'ala reer Baydhabo walilana todoba tumela masana dawladnimo sharaf iyo karaamo leh haysateen jiditeedii magaalada ummada reer Koonfur Galbeed ka dhisi horumarkii dareeri kulli walbaabi ka ilaahay idin shay daraawiishta Koonfur Galbeed kooy doonta Baydhabo lama huraan lankii ka alahaayniyo hilimooda hayaan lankii ka alahaayniyo hadareerana hadhawaayo salana ilaahay idin shay